boqor Cabdiraxmaan Xuseen Faarax iyo musharax Liibaan Barkhad Maxamuud Geedi ayaa kormeer ku tagay deegaanada waqooyiga gobolka Sanaag ee ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Somaliland sida Madar Muge, Rugay, Ceeldibir, Meedh iyo Xaadh kuwaas oo dhammaantoodba ay ka socoto diiwaangelintu waxaana bulshada deegaanka Rugay ka warbixiyay sida ay u socdaan kaar qaadashadu intaasi kadibna waxa mas'uuliyiintani ay gaadheen deegaanka Xaadh waxaana ay halkaasi warbixin ku siiyay waayeelka iyo waxgaradka iyadoona halkaasina ay ka soo kala jeediyeen hadallo kala duwan hawsheedu ku dhamaato nabadgelyana waa ku socotaa waa goobta Madar Muge halka aynu taaganahay sanaaduqdu waa noo timi diiwaangelintina si fiican bay noogu socotaa horena waa la iskaga diiwaangeliyay oo dadkeedu waa maqan yahay waana imaraya waana joogaa diyaar waa u nahay inaanu kaararka qaadano iyo qoqaash oo la socota beesha security waa xildhibaanad si wanaagsan oo noogu socotaa diiwaangelintu kawaari badan baa maqan dadkuna waa laga shaqeynayaa nabadgelyada waa taam dhawow dadkaagii marka waa ka iyo nimanka xildhibaanadana waxaan leenahay dee kusoo dhawaada codkiina waa iskeli doontaa haddii alla waxaa ka socotaa diiwaangelinta way shaqaynaysaa xoogay dadku ma nagu yar mooyaane sida kale goobta way shaqaynaysaa wax dhibaatana kama jiraan boqor Cabdi Xuseen Faarax xildhibaanaan doorana dad baan soo saaraa madaxweynayaal baa la doortaa cid aan wax ka aragna haba yaraatee ilaa ka u dhashay ma jirto codalka waa noqodana gacanta lagu dhaaminayo goobta ka codeey jir kaar kale waa qaaday jir kana waa dadaalayna waa saadash karo ka soo shaqeeyo waxba ay farqan amba fidni deegaanku taa wuu helay waxa kaga wacti maanta dasaalinta wada suldaanayda wada boqorayda wada baan arki jiray walabaadi oo dhamaatay ka socdo kole rag rafs waxa ku tiin ilaa boqorada waa idin la socda boqorka xildhibaanada culimada caam ahaan booqashada nimanka noogu yimid salaamay kaarka miyay kaarka dadaal baanu u qabnaa halkii qof jiraanu u qabnaa lug baanu ku doonaa gawaaraanu ku doonaa amba faydniya waxba hay fari halkaas ay naga joogtaa bismillaahi rahmaani rahiim kaarkii waa la qaaday waa harublug iskuul ma jiro loo shaqeeyo ceelka waxaan ka dhigtaa ceel bay baxan la yiraahdo waa xuska buurta hoosteeda waxbarashada mari caafimaadna mari meel kasta waxa lagu qadariyaa dadka ka soo baxay codadkooda lagu qadariyaa dawladda loo geeyay waxa loo ogaanay codka ka soo baxday halkaas ma taqaanaa tirada halka ka soo baxda lagu qadariyaa deegaankeena oo kale tirada ka soo baxda lagu qadarinayaa iskuul heli maysid dad yar meesha duu joogo dhakhtar heli maysid mashaariic ku iman mayso waxba wax meel cidaab laga soo qaadaya laakiin meesha population-ka badan ku nool yahay ilaa waxay helaysaa waxbarashadeedii waxay helaysaa hadii lagu rooyahay ma taqaanaa waxyaalihii tashiilaadka oo kale waxaan wadaan mar gobol baa lagu tartamaya mar reernimo baa lagu tartamaya marna deegaan baa lagu tartamaa meesha aynu ka yeesanahay reer galbeedku yahay dadba ma joogo xuquuqdeena aynu ku weynay waa tirada gaaban kaarka inaynu ku dadaalo qof inuu inaga habsaamin markaarkan qaadano waxaan hore u qaadanay ha qaataan wixii qaan gaaray ha qaataan systemka wixii lumay iyo wixii gubtay system bay leedahay oo loo maraya caafimaad iyo biyo iyo wax walba waxa idin haya kaarka oo aad maanta qaadataan in maanta la arko population halka ku nool waxtarkoodii iyo qiimeyntoodii iyo annagu deegaankana ka soo jeedo waxaan hiiliyahooba idinku garab istaagi kareen oo marka idinku nagu caawisiin codka ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyey boqor Cabdiraxmaan Xuseen Faarax iyo musharax Liibaan Barkhad Maxamuud Geedi oo bulshada deegaanadaasi ku booriyay inay qaataan kaarka inkana shacabkiina waxaan leeyahay kaarka isdiiwaangelinta ayaa nin kasta kaga adkaanaysa haddii ay idin noqotaan majority oo aydan minority magaalada tani aanay noqon waxa weeye waa la idin tixgelinayaa dawladdu waa idin imanaysaa hay'adu waa idin imanayaan kaarka cod bixinta waxa ku helaysaan
xuquuqdiinii ها فرتينا إذن كله عدة دوتان بقول ديسان وهي واحدين قبنا يود شروط على قشان وشدة يدا السعودال كيجا يسافر كيجا وحكوس على اسمها وعي قلنتا دوان قلنتا دور شوينكا سومالي لان سكان هو سو اسكو مالين يسكو وقت كدعي دونا دالك سومالي لان قارا قودهانبا وعرنا الاسبرارو تشنو وايو كارك قادنو وايو اسدوان قلنو تي سومالي لان ودر ماتو وحلو قدرتميا تيرادا ديغان اما اول ميل تالا قضب وزارة waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka deegaanada buuraleyda gobolka Sanaag ama deegaanada soo jeeda dhaadhaca xeebaha runta wax kama qabtaan wax allaaliyo waxay ka qabtaan habiraata ma jirto waxaan guud wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka aan u jeedinaa waayaan daro waxay ku tahay la fajab bay ku tahay in xaal oo intaas oo baabileeshada joogo oo maanta meel la istaagan la leeyahay bilaas ku tahay waxaanu doonaynaa inay wax ka bedelaan masaajidkana inta ka dhimaanaa ku deeqay oo bixinaya hadda la soo qiimeeya marka soo qiimeeysan waxa ka dhinaada insha Allah bilaad kana ay soo sheegaysa